kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online waa 9 bisha 12 sanada 2020 ku soo dhawaada wararka 24 saac ee All Banaadir Online qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxa qayb ka ah in dhacdo wacd ku maray inuu difaaci doono musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan Muqdisho kadib markii ay sii xoogaysatay cabsida xoogan ee laga qabo weerarka ka yimaada filla Soomaaliya dawladda Kenya oo la sheegay in cadaadis xoogan ku hayso maamulka Jubbaland kadib markii ay soo foosaarsay dhaqaale xumo baahsan iyo maamulka Jubbaland oo arrintaas beeniyay madaxweynaha Galmudug oo ka laabtay go'aan adag uu ka qaatay guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay xilli Galmudug ay qayb ka noqotay guddiyada uu tababarka uga furmay Muqdisho akhbaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah John Biden oo cadeeyay in mowqif adag uu ka qaadan doono xiriirka dawladda Sacuudiga daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweyn wararka 24 saac ee All Banaadir Online imikiyaatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka faahfaahsan in dhacda ayaa wacd ku maray inuu difaaci doono musharaxiinta mucaaradka kadib markii ay soo badatay cabsida xoogan ee laga qabo weerarka ka yimaada dawladda Soomaaliya General Yusuf Maxamed Siyaad in dhacda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin inay difaacaan midowga musharaxiinta kadib markii isaga iyo saraakiil kale loo xilsaaray amnigooda iyo sidoo kale difaacooda in dhacda ayaa sheegay in iyada oo loo magacaabin xitaa uu diyaar u ahaa in uu difaaco amnigooda xubnaha midowga musharaxiinta oo si weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in go'aankan uusan u arkin wax qalad ah isla markaana horay sidaan oo kaleba uu difaacay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu ahaa musharax madaxweyne iyada oo aan noola magacaabin in aan difaacno dadkaas musharaxiinta ayaan haddana waxaan diyaar u ahayn sidaan u difaacnay shalay madaxweyne Farmaajo markii musharax uu ahaa in aan u difaacno iyagana Yusuf Indhacda ayaa waxa uu hoos ka xariiqay in madaxweynaha Soomaaliya uusan boobi karin doorashada dalka wuxuuna ugu baaqay in uu u tiro dadka shacabka ahaa ee shalayto u soo banaan baxay markii la doortay loona xil saaray madaxweynaha dalka inuu yahay hadalkan Yusuf Indhacda ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo wali walaac xoogan iyo sidoo kale tabasho ay ka jirto doorashada 2020-2021 taas oo ay ku kala aragti doon yihiin xubnaha midowga musharaxiinta iyo sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya waqti kooban ayaa ka soo wareegtay markii Yusuf Indhacda iyo sidoo kale saraakiil kale loo xil saaray ammaanka musharaxiinta kuwaas oo Muqdisho ku yeelanay kulamo kala duwan waxaana Yusuf Indhacda uu soo dhaweeyay talaabada loogu xil saaray amnigooda wuxuu kaloo intaas ku daray in madaxweynaha dawladda Soomaaliya ay difaaceen markii uu ahaa musharax madaxweyne sidoo kalena hadda aysan ka aqbali karin in doorashada dalka la boobo maadaama shal rabitaanka shacabka uu booskan ku yimid hadalka Yusuf Indhacda ayaa waxa uu yahay mid saameyn ku yeelan kara qorshaha halista ah oo ay wada filla Soomaaliya kaas oo ku aadan in la weeraro maalin cad xubnaha musharaxiinta ee ku sugan Muqdisho kuwaas oo dawladda Soomaaliya ay ku fakarayso in gacanta ay ku soo dhigto dhamaantood sida aan ku helno xogo hoose balse hadalka Yusuf Indhacda ayaa waxa uu noqon karaa mid kale oo ah in ay haystaan difaac adag kaas oo ah saraakiisha uu ka mid yahay Yusuf Indhacda kuwaas oo wacdka ku maray in musharaxiinta aan la taaban karin isku dayga filla Soomaaliya ee ku aadan weerarka iyo soo qabashada musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo Muqdisho ku sugan iyo baalmarka sharciga doorashooyinka loo dejiyay ayaa waxay noqon kartaa mid dhalisa dagaal gacan ka hadala maadaama dhinaca kale uu isku hadlaynay awood xilligan uu leeyahay ciidamo badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo saraakiishooda ayaa diyaar u ah inay difaacaan xubnaha musharaxiinta kuwaas oo mushaar joogto ah ka qaata madaxda dawladda Soomaaliya waxaana loo arkaa inay noqon doonto dawlad dhexdeeda dagaalami doonto haddii musharaxiintaas la aado ama gacan loo qaado xilligan madaxweynaha Galmudug ayaa ogolaaday go'aan uu ka qaatay guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay isagoona ogolaaday in Galmudug ay ka noqoto xubnaha uu furmayo tababarka guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug ayaa la xareeyay iyagoona ku biiray qaybna ka noqday guddiyada tababarka uga furmo hotelka Bees ee magaalada Muqdisho guddigaas oo ah heer dawlad goboleed madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa horey waxa uu dalbaday in guddiga dhinaca Galmudug ka socda laga reebo guddiyada la xareynayo balse waqti dambe ayuu amray oo uu ogolaaday in la xareeyo oo ay qayb ka noqdaan waxaana guddigaas maanta uu qayb ka noqday shakhsiyaadka uga furmay tababarka hotelka Bees ee Muqdisho guddiyada la xareeyay ee tababarka uu furmay ayaa waxay ka kala socdaan maamulada Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo xukuumadda Soomaaliya ay ku beerisay min 3 xubnood oo qayb ka noqonaya guddiyadaas talaabada madaxweynaha Galmudug uu ku go'aansaday in la xareeyo guddiyadan doorashada ayaa waxa ay meesha ka saaraysaa dhexdhexaadintii uu ka dhexwaday midowga musharaxiinta iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo ku muransan guddiyada doorashooyinka ee dawladda Soomaaliya ay magacawday siyaasadda waxa uu ku wada madaxweyne Farmaajo ayaa Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Galmudug waxa uu arkaa inay tahay mid wax lagu maamuli karo sidoo kalena lagu hogaamin karo 4 sano ee soo socota dalka talaabadan Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Galmudug uu ku ogolaaday in xubnahaas ay qayb ka noqdaan guddiga doorashooyinka ee tababarka uu furmayo ayaa waxay durba ka careysiisay xubnaha midowga musharaxiinta kuwaas oo Muqdisho ku yeelanaya kulamo ay kaga arrinsanayaan arrintan maadaama madaxweynaha Galmudug markii hore loo arkay inuu yahay shakhsi dhexdhexaad ka arrinta taagan balse xilligan loo arkay in uu si toos ula saftay madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo markii horeba lagu xaglinayay
qorshaha doorashada ee 2020-2021 oo ay dawladda Soomaaliya wada ayaa waxa uu yahay mid ay ku midaysan yihiin 3 maamul goboleed oo ka dhisan dalka halka 2 kalena ay ka madax bannaan yihiin qaabka madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo arrintan uu wajahayo. arrimahan oo idil marka la isku geeyo ayaa waxay noqon kartaa in doorashada dalka mar kale ay dib u dhacdo maadaama arrintan ay tahay mid aan la aqbali karin gudiyada ay magacawday dawladda Soomaaliya ay ka soo horjeedaan xubnaha midowga musharaxiinta kuwaas oo dalbaday in la kala diro gabi ahaanna la bedelo kuwa cusubna la soo dhiso. dawladda Kenya ayaa cadaadis xoogan saaraysa maamulka Jubbaland kadib markii ay soo wajahday dhaqaale xumo baahsan. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedo sheegaya in dawladda Kenya ay ku hayso cadaadis xoogan kaas oo kaga hor imaanaya madaxda dalka sida dhawaan lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya. saraakiil ka tirsan xafiiska Axmed Madoobe ayaa waxa ay ka hadleen oo ay beeniyeen eedeymahaas iyagoo sheegay inay yihiin kuwa waxba kama jiraan waxayna ku tilmaameen been ay soo dhoodhoobtayna soo abuureen filla Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa hore waxa uu sheegay in Jubbaland ay ka go'an tahay inay ka qayb qaadato doorasho dalka ka dhacda taas oo ku dhacda qaabkii lagu heshiiyey isla markaana Jubbaland ay xaq u leedahay in ay maamusho doorashada qaybta ka dhacaysa deegaanada maamulkaas uu ku jiro gobolka Gado isagoona tilmaamay in 4 sanaba dalka ay astaan u tahay in doorasho ay ka dhacdo. dawladda Soomaaliya ayaa hore waxay ugu dhawaaqday in dawladda Kenya ay ku lug leedahay faragelin taas oo ku aadan in maamulka Jubbaland ay ku qasbaysay inuu ka hor yimaado dawladda federaalka Soomaaliya. waxa kale ay sheegtay filla Soomaaliya in xukuumadda Nairobi ay cadaadis xoogan ku saarayso madaxda maamulka Jubbaland iyadoo ay kala kulmayaan cadaadis ah in dawladda Soomaaliya ay ka hor yimaadaan sidoo kalena danaha dawladda Soomaaliya ay ka soo waayaan deegaanada maamulka Jubbaland. arrintaas ayaa Axmed Madoobe wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay eedo been abuur ah kuwaas oo dawladda Soomaaliya ay soo dhistay. maamulka Jubbaland ayaa dhawanahan waxa uu dawladda Soomaaliya ku eedeynayay in ay doonayso in ay afduubato doorashada dalka ka dhacaysa waxaana madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu dhowr jeer madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uusan rabin in doorasho xor iyo xalaal ah ay dalka ka dhacdo waxaana dawladda Soomaaliya iyo Axmed Madoobe isku hayaan cidda maamulaysa iyo qaabka ay u dhacayso doorashada xildhibaanada labada aqal ee gobolka Gado ka soo galaya baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare ee dalka. welina waa la isku fahmi laayay arrintaas waxaana Axmed Madoobe ilaa iminka uu dalbanaya in dawladda Soomaaliya ay gacanta kala baxdo arrimaha gobolka Gado waxaana madaxda dawladda Soomaaliya laga codsaday in ciidamada faraha badan ee gobolkaas ku sugan ay soo celiso kuna soo celiso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo markii hore laga daadgureeyay. madaxweynaha ayaa arrintaas dhagaa ka furaystay waxaana Jubbaland xilligan loo arkaa inay tahay maamul hoostiga dawladda Kenya waxaana dawladda Kenya cadaadiska dawladda Soomaaliya ay kala kulmaysa ay tahay in la xayiro qaadka imaan jira Muqdisho arrimo la xiriira faragelinta Kenya ay ku hayso maamulka Jubbaland oo ah maamul ka mid ah Soomaaliya inteeda kale. beeninta maamulka Jubbaland ay beeniyeen arrintan ayaa haddana waxaa la arkay dhowr jeer in maamulka Jubbaland ay cadaadis saareen dawladda Kenya. dawladda Kenya ayaana ku cadaadinaysa Jubbaland in madaxda dawladda Soomaaliya waxyaabo badan oo ay kaga baahnayeen deegaanada Jubbaland ay xayiraad ka saaraan waxaana arrimahaas oo dhan lala xiriirinaya in Jubbaland ay tahay maamul dawladda Kenya markii hore ay aasaastay. daawadayaal weli waxaad daawanaysaan ood la socotaan wararka 24 saac ee All Banaadir Online imikiyaatan u diyaar garooba daawashada akhbaaraadka caalamka. madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa sheegay inuu mowqifkaada kii Trump ka qaadan doono xiriirka uu la leeyahay dawladda Sacuudiga. madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inuu mowqifkaada kii Trump ka qaadan doono xiriirka dawladda Sacuudiga. maalmo adag ayay u tahay hoggaanka Sacuudiga gaar ahaan dhaxal sugaha awoodda leh ee Maxamed bin Salmaan. gudaha waddankiisa ayuu awood iyo magac ku leeyahay balse caalamka waxaa la ogyahay inuu awoodi waayey in uu meesha ka saaro shakiga doorkii la sheegay in uu ku lahaa dilkii wariyay Jamaal Khashoggi kaas oo dhacay sanadii 2018. haatan maamulka Mareykanka ayaa qabanqaabinaya in uu u guuro aqalka cad madaxweynaha la doortay ee Joe Biden waxa uuna cadeeyay mowqifkiisa inuu ka adkaan doono kii Trump ee la xiriiray xiriirka dawladda Sacuudiga. dawladda Sacuudiga ayaa eedeymo badan lagu eedeynaya xilligan oo ay ku lug leedahay sidoo kale dagaal la socda. dagaalka Yemen ayaa noqday kan ugu dhibaatada badan dawladda Sacuudiga waxaana caalamka intiisa kale laga ogyahay in Sacuudiga dhibaato xoog leh uu ka geystay gudaha Yemen. colaadda dalka Yemen ayaa lugta ugu weyn la sheegay inay ku leedahay dawladda Sacuudiga. musiibadii ugu weyneed ayaana Sacuudiga ka soo gaartay gelitaanka dagaalkaas maadaama Xuutiyiinta dhibaato weyn iyo sidoo kale weerar ay ku hayaan Sacuudiga. Sacuudiga ayaana gala meelo badan uusan ka fiirsan sida la shaaciyay kol hore. dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa xilligan waxa uu fiirinayaa sida ay xaaladda isku bedesho maadaama hoggaan cusub uu yeeshay Mareykanka kaas oo durba shaaciyay in xiriirkii hore iyo kan uu isbedeli doono sidoo kalena uusan noqon doonin xiriirkan mid la mid ah kii kala dhaxeeyay Mareykanka intii uu xilka hayay Trump dawladda Sacuudiga. madaxweynaha cusub ee la doortay waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu noqon doonaa nin ka duwan siyaasad ahaan madaxweynihii hore ee meesha ka baxay madaxweyne Trump waxaana dawladda Sacuudiga xiriir dhow ay la lahaayeen madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump intii uu xafiiska joogay waxaana Mareykanka lagu eedeeyay in uu ka hadli waayay misna tallaabo ka qaadi waayay dilkii wariyay Jamaal Khashoggi kaas oo ka dhacay waddanka Turkiga. waxaa dawladda Sacuudiga loo arkay dawlad saaxiib dhow la ah madaxweynaha waqtigiisa hadda sii dhamaanaya ee Trump waxaana uu sheegay inuu isbedeli doono xiriirkii ka dhaxeeyay Mareykanka iyo Sacuudiga.
waxyaabo badan ayaa laga filan karaa madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka John Biden kaas oo loo arka in uu yahay rugcada siyaasadeed muddo dheerna ku soo jira arrimahan waxaana dawladda Sacuudiga waxyaabo badan oo madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Trump uu iska indhatiraya ay noqon doonaan kuwo dembiyadooda lagu qaadi doono maadaama xilliganba ay soo baxayaan walaaca laga qabo sida uu noqon doono xiriirka dawladaha Sacuudiga iyo Mareykanka kaas oo dhawaanahan ahaa mid aad u sarreeyay sidoo kalena dawladda Sacuudiga ee aad iskugu haleyn jirtay awoodda dawladda waddanka Mareykanka daawadayaal intaas waxaa ku dhan wararka 24 saacadood kala socoteen All Banaadir Online waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada wararkeena iyo guud ahaan warbixinada ka baxa All Banaadir Online